xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xariga fiber optiga ay dawladda Djibouti leedahay ayaa waxa la soo marinayaa badda Berbera arintaasi xariga sidoo aragta bismillaahir rahmaanir rahiim adeer waan maqlinay ilaa shalay magaalada way ku jirtay waxa la yaaba in fiber optican annagu Djibouti nama xukunto haday tiri waxay ku bilowday Soomaaliya waxaan gelinay fiber optic Afrika dhamaan gelinay baylaan waxaan kaga bilaabaynaa Berbera ayaan kaga bilaabaynaa oo Soomaaliya muqdisho ku xigsiinina Nairobi Mombasa ilaa South Africa halkaas ku gelinayna horta waxaan u sheegnay Djibouti in la yiraahdo annaka Soomaaliland haddana Soomaaliland nahayna fiber optican mar horaan baas kareynay uu noogu jiraa Djibouti buu kaymo waa shirkad baa la siiyay waan baarlamaanka la siiyay waxa la soo mariyay Djibouti intaas oo dhan la soo mariyay marka waxaan leenahay annagu Soomaaliland ma leeyahay in ka qaldan tahay hal ugu dhaarso Soomaaliland inta qaran jira oo jiri doona insha Allah bismillaah kariin oo caalan leh oo madaxweyne leh oo wax walba leh oo aana Djibouti laga maamulo ayaan leenahay marka walaal waxaan ku leenahay reer Djibouti hadaldaama in hargadaamada naga deysta annagu dawlad baan nahay halkiina Allah inuu ka asturo annaka halka ku asturo marka xildhibaan xariga fiber optiga aan saxiseen ma shirkad kaliya oo hadda tayn ognahay ee Soomaaliland ka shaqeysa oo kaliya ayaa loo xiray sanadada loo xiray shirkadaasi aad baarlamaankiina saxiseen waa intee shirkad qura loo xiray 15 sanadood baan 10 baa tagay 15 baa harsan taabade qaladiyo saxaba si loo wansiibo loo ansixiyay marka waxaan leenahay imika hadaa leedin shirkadii baarlamaanku ansixiyaha laga qaado hal mariyo in muqdisho la mariyo Soomaaliya aan ugu darsan yeeli meeyna baan leenahay wasiirka isgaarsiintuna shalay waa ka hadlay waana ku raacsanaa